السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشنا شكين مردا ودايما مهندس كله مرة صدحات مر أفراد بأنه نبضة يدن كون نبضة إلهي سكا السمي وإلهي مهدي أغياري ما أنت وحان إدين وذا أرهم قصة قصة آد ما أرقتي حوقفها إلي دونتان بأن إدين وذا ما أنت sida aan maanta idin wad waxaa la yiraahdaa magaceeda watiyaal isxasuusta la yiraahdaa waxaa jiray waa qiso dhab ah oo dhacday way qisada tan waxaa jiray beri beri adiga sideetameeyadii meelahaas qisadan dhacday waxay ahaayeen laba arday oo iskuul isla dhigan jiray wiilay gabar Soomaaliyeed bay qisadani ku dhacday wiilka waxaa la oran jiray Cawaale gabadhan waxaa la oran jiray Cadar iyo Cawaale iskuulku waxay iskala soo bilaabeen dugsiga hoose ilaa dugsi sare bay isku galaas ahaayeen labadan dhalinyaro Cawaale iyo Cadar waxay ahaayeen waxaan dhihi karaa labada ama saddexda ama afarta qofood oo galaaska ugu firfircoon bay ku jireen oo mar alla markii su'aal la soo bandhigo aniga mid kale fartu taagi jiray waa la joogay asxaabey labadoodu waxay ahaayeen laba shaqsi oo ilaahay xishood baa la yiraahdo ilaahay ku manaystay bay ahaayeen laakiin wuxuu jacaylku ku badnaa markaa ninka la yiraahdo Cawaale ku badnaa Cawaale gabadhii meesh marka galaaska wuxuu imaan jiray intaan gambaleelku yeerin safka ugu horeeya buu soo istaagi jiray iskuulka si uu kursiga gabadhaas ku xiga u fariisto waa Cawaale bas wiilasha dhalinyarada waxay maxaa ordaysaa warsug may ana waxaan jecelahay meel aan macalinka ka arkaayo aan raba inaan fadhiisto xagee macalinku joogaa ninkan jacayl baaya mana sheegan karo ninka jacayl raad waa wax dhib badan wallahi billaah hadii uu ma aragtay qofkana uu ku yar yahay ku cusub yahay oo maxay ahayto weligiis uu jacayl soo man jacaylka koowaad wax ka dhib badan hadii ilaahay ma abuurin asxaabay markay hawsha halka marayso Cadar iyo Cawaale dugsiga dhexe waa la soo dhameeyay si nabad iyo maxay ahayto guul bay ku soo dhameeyeen dugsiga sare markay marayaan galaaska 12aad form 4 ninkii yaqaani baa waxaa dhacday waxaa soo baxay barnaamij la oran jiray tirkoobka dadka oo wasaaradii qorsheynta qaranka Soomaaliya ay markaas waday oo wadanka dadka inta degan la tirkoobayo baa soo baxday bas Cadar iyo Cawaale tirkoobkii waxaa lagu qoray degmada Ceeldheer ayaguna waxay joogeen waxay deganayeen magaalada Dhuusamareeb qisadu waxay ka dhacaysaa magaalada Dhuusamareebeed ay ka dhacaysaa qisadu ninkii yaqaan wixii ila Dhuusamareebeed ha ismuujiyaan qisadu Dhuusamareeb ay ka dhacday waa la baxay waxaa la tagay magaalada Ceeldheer tirkoobkii ardaydii iskuulka kulli waa la israacay waa la wada baxay gabdho iyo wiilal tirkoobkii waa loo kaxeeyay waa la israacay Ceeldheer baa la tagay tirkoobkii hawshii meesha ka bilaabatay hay'ado hawshi ay socoto baa maalmaha ka mid ah wiilkan ilaa ay hadda waxba uma usan sheegin gabadhan ila socda Cawaale ilaa ay hadda wax jacaylkiisa uu sheegto ma jirto wili waa la aaminsan yahay waa qarsanaya alla maxaa laga qabsaday oo qarsanaya waa la joogay maalin baa iyadoo la joogo ceelka biyaha laga cabo dadku waxay isugu yimaadeen ceelasha meeshani waa marka waa degmo yar laakiin dadka inta badan waxay yimaadaan ceelka biyaha laga cabaa ceelka iyadoo ay Cadar fadhido saa kursi ugu fadhido wax qorayso way leedahay xagee deganta xagee ka timid carruur meeqa leedahay ay qorayso baa wiil imtixaan ah oo degmada Ceeldheerta dhexdeeda degan baa intuu tubada biyihiisa u soo qaaday buu indhaha uga furay gabadhii Cadar ahayd waxaas noola imaanaysa aniga waa taqaan qof fawda meel kasta waa joogtaa dhalinyaro fawda tubadii biyaha intuu qaaday buu indhaha saa uga sayriyay gabadhii qoraysa waa wiil
degan degmada ceeldheer ninkii cawaalo ahaa cir iyo dhul meeluu ka yimid adiguba kaala sheeg waa kan soo booday sidii libaax ugu soo duldegay wiilkii gabadha biyaha ku shubay feer naqdi labadu halkay dhulka laisla galay war maxaa dhacay ninkan nin jacayl haya waaye qoftiisiyo daro lagu sameeya ma fiirsan karaa waa maya markaasaa la kala qabtay war maxaa ninka ku dishay maxaa u dili waayo gabadha wuxuu ku sameeyey maadan u jeedin maxaa u dishay maxay tahay waa idab daranyaa isqijaanka halkay weliba kasii dhaaranayaa markaas markuu sidaa uu lahaa waa idab daranyaa isqijaanku buu wuxuu yidhi gabadhu rag bay leedahay soo in anigu jecelahay ma ogdiin buu hal mar lasoo booday waa la iswada fiiriyey dhalinyaradii iskuulka ciyaal iskuulka laisla ahaa waa la firi maxaa tiri maxaa faa ka soo baxay wiilka dhammaa wuu yaxyaxay isaga dhan bixishood waad garanaysaa nin dhalinyaro oo kelmaddii maalintii ugu horreysa oo kelmaddu waxbaan jecelahay u yidhaahdo bay ahayd markaasuu yidhi waa cararay wiilkii uu yidhi waa meesha lagu foortiyo dhalinyarada xali war cawaalo war ka baxooy war gabadhuu jecel yahay cadar buu jecel yahay baba ciyaal iskuul maxaa ka taqaanaa adiga forge oo lisforjiyey waa soo baxay meesha ay deganaayeen buu yimid cawaale gabadha cadarahayd biyihii waxay iska tirtirtay gabdho kale isla socdaan iyaduna gabdhuhuna meel bay deganaayeen wiilashuna meel bay deganaayeen meeshooday yimaadeen ilaan cadarey adiguba wiilkan waad rabtaa naagnimadii iyo qalbigii iyo ma aragtay sida ay ku dhihi lahayd mataqaano iyaduna mataqaano markaas iyada dhan gabadhi maalintii dhan waxaa kasoo hartay shib aamusnaan ma hadlayso gabdhii kalna cadar maxaa kugu dhacay maxaa la aamusan tahay maanta xagee lagaa hayaa say wax u jiraan waa gabdhihii baa maaragtay hadal lagu turtuuray waxay tiri aniga wallaahi xaalkaydu ma aqaansaanayo maba garanayaba ma hurdaa ma soo jeedaa say wax iga yihiin mama fahmi karo maanta asxaabay iga wareejiyay baasha ma aragtay waraysagan iga tartiib xaalkaygu maanta si aan ahay maba sheegi kareen masaasa ahaa gabar la yidhaahdo canab oy maxay ahayto aada isugu dhawaayeen saaxiibo ahaayeen cadar baa waxay tiri saaxiibey maxaa bal ila hadal aniga anaa saaxiibtaa oo kuley dadka anaa kuugu dhowo maxaa dhib u jira bal ii sheeg waxay tiri walaaley maanta arrintaas dhacday wallaahi anigu ma ogeyn sida ma aragtay wiilkan cawaala ah inuu irabo aniga dada wiil walaalkeeya oo isku fiicannahay oo maadooyinka wax isla samayno xisaabta wax walbu ahay laakiin hadalka maanta uu yiri meel buu iga taabta aniga xitaa haye adigana aniga xitaa meel buu iga taabtay marka bal waan ka fikirayaa saaxiibay arrintaas dadna qofna igu sheegno waa aniga adiga hanaga dhexayso masaasa ahaa haye waxba dhibi malay tira waa iska caadi waxaas dad dhalinyaro ahaa nahay saaxiibta ahaa nahay wax waa rabi kartaa gabar baa tahay isuguna waa wiil waa gayaanka wax dhiba hadda oo ku jiro oo weyn maba jiraanba haddii aad xitaad sheegto oo waxaad u qabta isagaa u sheegto wax dhiba ma lahan maxaad bal talinaysaa u sheeg may ma u sheegaayo inta isaga iiga sheego aan sugaaya may naayaa sugnaa maxaa ka baqada waxay tiri dhagay saaxiibay adiga waa adiga anigana waa aniga qalbigayga aniga dhanba waxay tiri beerkaa sidaa ii qaadmaya aniga dhanba waxaan ahay maba aqaano beerka i balbalaya markaan wiilka iga soo horbaxo maba sheegi karo marka wallaahi bilaahi ninaa jacayl arag baa yiri jacayl baa arkay jacaylku waa itixaan jacaylku waa wax loo baahan yahay horta laakiin ninka yaqaana kulley qofku soo maray baa ka sheekayn kara asxaabayaa warka idinku sii dheeraynine meeshii waxay joogeen degmada ceeldheer waxay joogeen ardaydii ka tegay dhuusamareeb ka tegay waxay joogeen muddo adigu 20 bil camal ah bay joogeen ay shaqadii turkoobta inay soo dhameeyaan ay ahayd bas adigu soo ay ku joogeen wiilkii wuu soo istaagi waayay meeshii gabadha ka shaqaynaysa maalintii kadib waaba carar gabadhi inay indhahooda isqabtaan uu ka cararayaa wiilka dhamaaba yani rabitaanka wallaahi bilaa horta dhalinyaranimada iyo waayihii hore iyo waayaan dhalinyaradu waa different isuma dhawa aad bay u kala duwan yihiin isuma dhawa
waa la joogay waa lasoo gabagabeeyey tirakoobkii waxaa la yidhahay ardada hala xirxirta waa baxaynaa waa noo dhammaatay shaqadii dhusmareeb baan aadaynaa safarkii waa lasoo gabagabeeyey maalinka dambe baabuur waa lagu soo qaaday ardada waa lasoo daba dhigay laba gaari waa lagu soo qaaday waddadii caddayd cagta saarmiyaa ka dhacday waa lasoo baxay markii la marayo tuulo u dhow adiga ceeldheer aan ka fogeyn oo la yiraahdo ceelbuur intaan la gaarin caws weyn la yiraahdo baabuurkii lagu joojiyey waxaa la yiri meeshaan ka quraacanaynaa dhallinyaradii tuuladii baa lagu degtay shaah iyo lacabo iyo maaragtay waa laga soo dhaadhacay baabuurtii gabdhihii iyo wiilasha si kasta ay maaragtay inkastoo gabdhaha iyo wiilasha ay kala socdaan balse haddana hal maqaayad baa wax laga cunayaa bes waa lasoo degtay maqaayadii baa la yimid gabadhi cadar ahayd iyo wiilkii cawaalo ahaa hal mar bay indhahooda isku dhaceen ka dhacday markaasuu waa nin raga oo markasta waa nin raga naagaha ayagaa ka adage wuxuu yiri cadare waxaa rabaa inaan kula hadlo walaalay may quraacayna horta mayuu yiri quraacda inta lagu maqan hal erey waa inaan ku iraahdo wax yar gees igu soo bax waayahay tiro kula hadlayaa cadare walaalay iga raalli ahaa qalada ii fahmin aniga maxay ahayd waa iscelin kari waaye walaalay haddii ay ceebtaani ii sheeg walaalay aniga waan kaa helay ilaa dugsiga sare aan dhamaynayn ilaa dugsiga dhexe baa qalbigayga ku tiilay intaas waa ku ilaashanaya walaalay maxay ahayd ha ii qaadin xumaan naf ku jecel baan ahay anigu yaa cadar indhaha ka soo haray naf ku jecel macnaa in leedahay saasay ugula hadli kartaa afkii baa kala tagay gabadhi gabadh xishoonayso beerkuna saa u balbalayeen saas u balbalayo shod keliya waa jacaylkooda wax ka xanuun badan male ninku soo maraa yaqaana asxaabey qisadani qiso dhow ma ahan laakiin maanta intaas baan kusoo gabagabaynayaa qisadan maanta intaasaan kusoo gabagabaynayaa la soco qaybteeda dambe safarkii caws weyne ilaa dhuusamareeb wixii dhex maray cadar iyo cawaale qaybtii labaad kula soco asxaabey haddii aad channel ku cusub tahay like-ta sheerta subscribe-ka waa xaggaaga aniguna wixii soo jeedin ah waa xaggayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa qisadii aan idiin soo sheegay qaybteeda labaad kala socda channelkayga waad mahadsan tihiin